الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومر kale iyo Malabqare YouTube channel aad baan u salaamayaa bulshada asxaabta ardada Soomaaliyeed ee kala duwan ee ku taxan channelkan Assalamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacsalan Allah ma iskale inaad caafimaad qabtaan oo rajeynaya dhamaantiin inaguna sidoo kale aad baan u caafimaad qabnaa Allahna mahad iskale maanta waxaan qaadanaynaa buuggii inoo socday oo buuggii koowaad unitkii 22 qaybtiisii B unitka waxaan u qaybinay buuggiiba ama unitkiiba laba qaybood A iyo B ee hore aan soo qaadanay unitka 22 eediisa hadda waa unitka 20 buugga koowaad unitkiisii 22 B Party B haddaba ardada iyo bulshada Soomaaliyeed channelkan ku tixan aad baan idin salaamaya si bulshada kale danaynaysa barashada luqadda Englishka si free ah iyo si qaasaba Abqare Online Academy waxay uga heli karaan si free-na channelka uga heli karaan si hadday danaynayaan courses iyo classes kala duwan waxay uga heli karaan Abqare Online Academy WhatsApp course ku qoran ayaad nagala soo xiriiri kartaan courses kala duwan oo luqadda ayaan idin helaynaa waxaana ka mid ah courses aan helayno qofka kulliyada ama ardada muddo luqadda ku dhex jirtay koorsooyinka gaaban oo ay ka mid tahay koorsadan laftigeeda hadda vocabulary-ga oo la yiraahdo 4000 essential English words-ka book 1 ilaa book 6 oo qiimo macquul ah kugu siinayno buuggiiba 30 iyo dhowr video ka kooban yahay macallageysigiisa iyo asagaba waad helaysaan waxaad kaloo helaysaan qofkii vocabulary kulliyada waaye qofkii luqadda grammarka shuruucda kulliyadana luqadda from A ilaa Z grammarkeeda helaynaa sidoo kale si qaasa qofka ugu liita tenseska oo kale waxaan helaynaa active-ka passive-ka conditionalska report speech-ka koorso ka kooban iyo types of verbs-ka noocyada verbs-ka si guud oo koorso gaaban muddo gaaban ah waxaan helaynaa academic writing qofka inaan ka dhisno waxaan helaynaa speaking course laftigeeda marka courses kala duwan luqadda ayaa ka socda Abqare Online Academy soo dhawaada casharkeena maantay waa buugga koowaad 40 essential English words-ka unitkii 22 Party B laba part kooban A iyo B waa B-dii eedii hore u soo qaadanay haddaba soo dhawaada waxaan rabaa insha Allah inaad gaarsiisaan bulshada weli uusan gaarin channelku si ay uga faa'iideystaan fadlan like-ta iyo share-ta iyo subscribe-ta iyo maaragtay comment-iga xataa jabtarada ama qaybaha is leedihiin waa muhiim ama aad idinku adag tahay sometimes aan uga soo hadalno aad baa mahadsantiin idin salaamayna soo dhawaada haddaba waxay noo joogtay ereyga u dambeeya wuxuu ahaa include oo unitkay 22 ereygiisii 10aad ahaa hadda ereyga 11aadaan ka bilaabaynaa 10kii dambe 10 waa 20 erey marka 10ka hore waxaan ku qaadanaa Party A-ga Party B-gana 10ka dambe ereyga ugu horeeya manage intaan sharaxinaan dhageysanay insha Allah A gate is a type of door. Gates are usually made of metal or wood. Gate 10ka hore ka mid We ahaa want to put up a wooden gate around our house. Include. include u dambeeyay To include something means to have it as part of a group. 10ka dambe Does this meal include a soft drink? Manage. To manage something means to control or be in charge of it. I had to manage the meeting myself. Mystery. A mystery is something that is difficult to understand or explain. The path on the map was a complete mystery to me.
Occur. To occur means to happen. When did the thunderstorm occur? Opposite. If A is the opposite of B, A is completely different from B. The opposite of black is white. Plate. A plate is a flat, round thing that you put food on. I put my plate down so I could put some food on it. Receive. To receive something is to get it. I received a present on my birthday. Reward. A reward is something given in exchange for good behavior or work. He was given a reward for his excellent performance. Set. To set something is to put it somewhere. Please set the dice down on the table. Steal. To steal is to take something that is not yours. The men tried to steal money from the bank. Thief. A thief is someone who quietly takes things that do not belong to them. A thief broke into our home and took my mother's jewelry. Okay, inta ay noogu dhammaatay dhageysashada tobankii dambe part B-gaha. Marka insha Allah markana aynu sharaxno qaybta labaad. Haddaba ereyga ugu horeeya waa manage. Ereyga ugu horeeya wuxuu noqonayaa manage. To manage something in wax la maamulo means waxay noqonaysaa to control, inaad controlsho, or be in charge of, inaad mas-uul ka noqoto. In charge of ayaa ah mas-uulka ahaansho. Who is in charge of here hadii la yidhahdo halkan yaa mas-uulka ah. Marka be in charge of inaad mas-uul ka noqoto meel amaad controlsho waa manage. I had to manage. Ereyga had to marka laga hadlayo xagga sharciga luqadda ama tenseska waa must oo simple past timid waaye. I had to haddaa aragto to wadata ama present haata ama past haatee have to ayay ka timid oo had to ay noqonaysaa. Marka I had to waxay noqonaysaa must past kuma timaado suuradeeda ama muuqaabkeeda kuma timaadee waxaynu isu bedelaysaa had to. Marka I had to waxa waajib igu ahaa waaye manage inaan maamulo the meeting kulanka by myself. Myself micno badan ay leedahay. Saddex qaab loo isticmaalaa. Mid waxay noqonaysaa marka self laga hadlayo mar waxa la yiraahdaa emphatic pronouns, waxbaa lagu ta'kiidiyaa. Marna waxa loo isticmaalaa reflexive oo waxa loo isticmaalaa marka falku gudbayo adiga falku ugu soo laabanayo. Marna waxa loo isticmaalaa keli alone. Marka waa alone hadda. I had to manage the meeting myself. Waa inaan manage gareeyaa maamulaa kulanka by myself maxay noqonaysaa aniga inaan maamulo keligay macnaa inaan maamulo. Ereyga mystery waa dahsoon ama ay adag tahay in la fahmo ama aysan macquul ahaynba. Impossible to understand or difficult to understand. Waxay adag tahay in la fahmo ayaa la yidhahdaa mystery. Mystery is something waa wax that's difficult ay adag tahay to understand in la fahmo or explain in la sharaxo. The path on the map waa wadada qariirada ku taala. Sawirka qariirada wadada ku taala was a complete mystery. Wuxuu ahaa mid gabi ahaanba to me aniga iga dahsoon ama ay adag tahay inaan fahmo ama ay adag tahay inaan sharaxo. Ereyga xiga aka waa happen oo kale dhicid waaye ama take place. To aka means macnaheedu waxay noqonaysaa to happen wax inay dhacaan. When did the thunderstorm occur? Goorma ayaa guguxu ama onkadku dhacay waaye. When did the thunderstorm waa dabaylo duufaano laftigeeda way noqonaysaa onkad is wata. Marka thunderstorm laakiin waa onkad ama gugux waaye. Goorma guguxu ama onkad ku dhacay. Opposites waxay noqonaysaa opposite waxay noqonaysaa lit waaye. A is the opposite of B. A waxay lid ku tahay B. A is completely different from B. A gabi ahaanba way ka duwan tahay B. Macnaha waa lit waaye.
The opposite of black, lidka midabka madow is a white, waa midabka cadaanka ayaa lid ku ah ama kasoo horjeeda. Ereyga plate waa saxan. Plate is a flat round, waa shay fidsan oo wareegsan that you put food on, aad cuntada ku shubto. I put my plate down, saxankaygaan dhigay, so sidaa daraadeed I could put some food on it, waxaan ku shubtay xoogaa cunta ayaan ku shubay, cuntaan ku shubtay. Receive waa helid. To receive something, inaad wax hesho, is to get it, waa inaad hesho. Get iyo receive waa isku macno, waa helid waaye. Ereyga xiga reward, abaalmarin waaye. A reward is something waa wax give la bixiyo in exchange of good behavior, laguna bedesho maxaa waaye dhaqan wanaagsan ama work, shaqo wanaagsan. Waa abaalmarin waaye, qofka abaalmarin la siiyo. Reward is something given, waa wax la bixiyo in exchange for good behavior, dhaqan wanaagsan ama work good, waa shaqo wanaagsan qofka la yimid in la siiyo. He was given, waxaa la siiyey, waa passive voice, a reward, abaalmarin, for his excellency performance, bandhigiisii aadka u wanaagsanaa. Shaqadu hayo sida wanaagsan usoo bandhigay darteed ayaa lagu siiyey. Ereyga set, waa hagaajin ama hagaajin ayay noqonaysaa. To set something is to put it somewhere, waa inaad meel dhigtaa, ama dhigid ay noqonaysaa ama hagaajin. Please set the dice. Dice waa bahalka loo yaqaan laaduuga, down, fadlan laaduuga dhig, on the table, miiska. Marka dhigada hadda ugu jirtaa. Steal waxay noqonaysaa xatooyo, waxaadan lahayn inaad qaadato. Steal is to take something, waa inaad wax qaadato, that is not yours, oo aadan adigu lahayn. Yours, aadan lahayn. Yoursta qola waxaa la yidhahdaa your markay tahay esta wadanin, waxaa la yidhahdaa positive adjective. Markii laakiin yours iyo ours iyo theirs iyo hers la yidhahdo s lagu daro, positive pronoun la yidhahdaa. Waa nooc ka mid ah lahaanshaha magacyaalada, laakiin mar kale waa sifo lahaansho waaye. The mean nimanku tried, waxay isku dayeen to steal money, inay lacagta ka xadaan from the banki inay lacag ka xadaan isku dayeen. Ereyga thefty waa xatooyada noonkeedii waaye. A thief, tuugu, thefty tuuganimada, a thief, thefty waa tuuganimada, noon waa mana ku taal meesha. Marka steal waa xadidii faabkii waaye, thiefna waa shaqsigii waaye. Theftyna waa marka xatooyadii waaye. Marka ereyga thief waa tuug. Thefty aan u qaatay. A thief is someone, waa qof, who quietly take, kaasoo si degan thanks ku qaata things shayaasha that do not belong to him, ee asaga uusan lahayn. A thief, tuugu, is someone who quietly takes, kaasoo si degan ku qaadanaya things shayaasha that do not belong to him, ee asaga uusan lahayn. A thief broke into our house, tuug ayaa gurigeena usoo dhacay. Break into oo soo dhicid waay. Habeenka tuug inuu guriga soo galay, break into guriga inuu soo jabsho. And took my mother's jewelry. Maxaa waaye? Dahabkii waa hooyada iyuna qaat. Dahabka waa silsilada, katiinada, jijimaha ayaa la isku dhahaa jewelry. Marka dahabka hooyadeena wuu qaatay. Waxay la tahay inaan casharka si fiican u fahnay. 10kii erey oo dambe part B-ga ahaa. Halkani waa Macallin Abqari YouTube channel. Sidoo kale haddaad danaynaysaan waxaad ka helaysaan buugtan Photos Social English Wordska oo dhammaystiran, oo qiimo yar oo macquul aan kugu siinayno. Halkii buugna waxaan ka diyaarinay in ka badan 30 video oo sharaxaadan qaabkan iyo qaab kasii muhiimsan loo sharaxayo. Haddaad danaynayso course-kaas vocabulary iyo courses kala duwanba wuxuu ka socdaa Abqari Online Academy, waxaad nagala soo xiriiri kartaa WhatsApp-ka ku qoran shaashada 506 sidoo kale waxaan jecelnahay inaad insha Allah laagtii sheertaba aad inoogu dadaashaan, naguna dhiirigelisaan inaan maaragta insha Allah hawsha aan wadno insha Allah si ay dhiirigelin noogu noqoto. Fadlan aad waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.